habboon daawadayaal waxaan ahay Shucayb Maxamed Cali waxaan ku suganahay hoteelka Dekaale ee magaalada Muqdisho halkan waxaa goordhow ka furmay shirweynaha ama shir madaxeedka dalalka deriska la ah dalkeena gaar ahaan dalalka loo yaqaan safka hore ee dagaalka ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka inuu walaalaha nahay ee Djibouti geelle madaxweynaha dalka inuu deriska nahay ee Kenya mudane William Samoei Ruto iyo ra'iisul wasaaraha dalka inuu deriska nahay ee Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali ayaa shirkan ka qayb galaya oo goordhow ka furmay halkan oo ah hoteelka Jasiira shirkan madaxdu waxa ay diiradda ku saarayaan qodobada ay markaasi soo diyaariyeen dhinacyadii hore halkan ugu kulmay oo ay kamid yihiin wasiirada difaaca dalalka madaxdooda halkan ay ku shirayso iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida qodobada ugu muhiimsan ee madaxdu dul istaagayso waxa kamid ah in markaasi loo midoobo dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ciidamada qaranka Soomaaliya oo runtii waqti kooban ku muujiyay guulo lixaad leh oo ka gaareen dagaalka khawaarijta al-shabaab sidoo kale qodobada madaxdu ay dul istaagayso waxa kamid ah soo bandhigida sida khawaarijta al-shabaab ay isugu dayayaan inay khatar galiyaan ammaanka iyo xasiloonida gobolka geeska Afrika gaar ahaan dalalka deriska la ah dalkeena oo ay madaxda ka yihiin madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaraha halkan ku kulansan haddaba si aynu u helno tafaasiil dheeriya oo ku saabsan shirkan ahmiyadiisa iyo waxyaabaha madaxdu ay dul istaagayso waqtigan waxaa goordhow noo waramay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur oo aan su'aalo ka weydiinay shirka hadda socda iyo waxyaabaha madaxdu ay ku dul istaagayaan iyo waqtiga la filayo inuu soo gabagaboobo aada u mahadsantahay walaalkay bahda guud ahaan telefishinka qaranka waa salaamaya saaka waxaa meeshaan ka furmay shir shalay soo bilowday qaybtiisii labaad ayaa maanta meeshaan ka furmay waxaa kulmay markii hore wasiirada difaaca maaragta wadamada deriska ah kadibna shirkii waxaa noo furmay madaxweynayaasha iyo dhammaan wufuudda ay maaragta ka qayb galayeen hadafka shirkan isugu yimid waxa waaye in dalalka deriska nala ah oo khataraha khawaarijta nala wadaaga in maaragta ka qayb qaataan ciribtirka khawaarijta oo yacni dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed guulo waaweyn ka gaareen dhameystirkooda inay ka qayb qaataan dhammaantood waxay ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan sidaa la socotidna dalalkan waxay ka mid yihiin dalalka ku deeqa ciidamada ATMIS oo dalka ku sugan oo shaqo ka haya ayay ka mid yihiin waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inay maaragta commitmentigoodii ay ka dhabeeyaan oo ay maaragta nala dhameystiraan inta yar oo harsan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalalka adduunka waxay qirsan yihiin shaqada baaxadda leh ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodu ay ka qabatay la dagaalanka khawaarijta oo aan in muddo ah shaqo noocaan oo kala laga qaban sidaas daraadeed garab istaag buuxa ayay noo muujiyeen shirkan weli wuu socdaa muusan dhamaanin laakiin madaxda dawladaha deriska ah saddexda dal nala joogta dhammaantood waxay xaqiijiyeen in ay nagu garab taagan yihiin wax allaal wixii awoodooda waana ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo in natiijo wax ku oola iyo communique macquula uu ka soo baxo oo maaragta shacabka Soomaaliyeed lala wadaago waayahay wasiir kulamada sida hoose loogu dul istaagay arrimaha taagan oo soo afjaridda khawaarijtu ka mid tahay wuxuu ahaa kulamadii dhex maray wasiirada iyo taliyaasha wasiirada dhigaaga la kulantay kulamadaas maxaa diiradda lagu saaray kulamada saddex qaybood saddex kulan oo close meeting ayaan galnay kulan wuxuu ahaa kulankii taliyaashu ay galeen oo maaragta ciidamada qalabka sida ee dalalkaas waxayna isla garteen yacni shaqada ay tahay in ground laga qabto dhulka laga qabto oo maaragta leh noocyadeeda kala duwan kulanka labaad wuxuu ahaa kulankii wasiirada ay galeen waxaan report ka dhageysanay taliyaasha iyo shaqooyinkii ay soo qabteen kadibna waxaan aadnay maxaa la dhihi jiray in wasiiradu ay qaybtii loogu talagalay ee siyaasadeed ay go'aano ka gaaraan shaqadaasi sida loo qaban lahaana ay maaragta taliyaashu u tilmaamaan kan saddexaad wuxuu ahaa midkii madaxda oo xaqiiqdii iyadana ay ku baarakeeyeen shaqooyinkii wasiirada iyo taliyaashuna ay qabteen awaamiir cusubna ay ku bixiyeen marka muhiimaddu waxay tahay un shirkan
waa shir miro dhal ah oo aan rajaynayno in xaqiiqdii wax ka bedeli doono xaaladda hadda ka taagan dhulka khawaarijna inta hartay loogu dhammaystiri doono laakiin asalku wuxuu yahay inay soomaali isku tashato soomaali inay go-aankeeda iyadu gaarto soomaali inay maxaa la dhihi jiray khawaarij iska kiciso soomaali inay maaragtay wiilasheedii iyo gabdhaheedii ay maaragtay gacmaheedii isaga kiciso khawaarijta intaas waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir wuxuu ku soo aaday shirkan iyadoo bilaabanayo wejiga labaad ee dagaalka oo deegaanada koonfurta dalka ah dhawaan uu ka bilaabanayo isweydiinta dadka ay hadal hayaan waxaa waaye dalalkan dariska nala ah ciidamadoodu si ka duwan wejigii koowaad ee dagaalka ma uga qayb geli doonaan wejiga labaad way uga qayb qaadanayaan hadafka uu madaxweynaha maaragtay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isugu wacay dalalka dariska ahna waa intaas inay contributionkooda ka geystaan inay waxyaabihii maaragtaa waxyaabaha aan dhihi karno ilaahay hadduu ku idmaayo waxbay ku soo kordhin karaan ama ciidamadooda waxbay ku soo kordhin karaan ama shaqada la hayo waxbay ku soo kordhin karaan aan isleenahay oo dhan waxyaabaha hadda laga shaqaynayo marka waxaan rajaynaynaa inay ku soo biiraan aana furmahana aan ku aragno in ay maaragtaa shaqadii hore wax ka bedelan groundga lala yimaado marka xaqiiqdiina dalka shaqooyin muhiim ah haddaba ka hayaan annaga waxaan rabno waxay tahay shaqooyinkii la hayay in la laabo kuwa cusubna la qabto maaragta masajkeena intaas waa ajendayaasha waxaa ku jira in madaxdu ay baaqa caalamka u jeediyaan ku aadan dibudhiska ciidamada qaranka oo haddaba si fiican uu u socdo dibudhiskooda guulo badanna gaaray bal ka warran ajendahaas waa run mar walba oo madaxdu ay isku timaado dhowr qodob in la kor istaago muhiim waaye taageerada caalamka iyo baaqa caalamka mar walba in la kor istaago muhiim waaye maadaama aad dawlad soo kabanaysa aan nahay qodobka labaadna waxa waaye ciidamada soomaaliyeed haddaan la dhisin sideedaba shaqada ma aragtaa qabashadeedii mar walba annaga ajnabi kuma tiirsanaan karno sidaas daraaddeed ciidamada haddeer 7 bilood dagaalamaya waa ciidamada qalabka sidoo Soomaaliya waana la arkay waxtarkooda ayaga in la xoojiyo oo la dhiso ayaan rabnaa annaga si amniga ay maaragtaa annaga amnigeena ugu filnaano ka saddexaad muhiimka waxay tahay khawaarijtu waa organization ama maxaa la dhihi jiray mafia international ah waay dawladaha dariska ahna amnigooda waxay ku yihiin threat waatay Kenya ay dhibaateeyeen waatay Ethiopia waqti dhow ay inay galaan ka shaqeynayeen inay dhibaateynayeen meel ay dhaafayaan oo dalkaana ama dariska ah ma jirto waa mafia caalami ah marka mafiadaas caalami ah in lis wada dhaafiyo ayadana wax meesha ku jiro oo si gaar ah ay dawladaha dariska u taabanaysaa sidoo kale dawladaha waxay ka mid yihiin midowga Afrika oo operation maaragta ATMIS halkaan ay u joogto waxay kaloo ka mid yihiin maxaa la dhihi jiray caalamka guudaha Afrika waxay ka mid tahay caalamka ayay maaragta rabnaa inay baaq u diraan gobolka ayaan rabnaa inay baaq u diraan waxaan rabnaa inay baaq u diraan maxaa la dhihi jiray cid walba oo lisleeyahay dagaalkan waxbay ka gashaa marka waa ku mahadsan yihiin inay qeybahaas oo dhan ay cover gareyn doonaan aad iyo aad mahadsantahay wasiir waqtigaaga wagaag wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda difaaca dalka mudane cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo faahfaahin naga siinayay cabdiqaadir maxamed nuur wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu ahaa daawadayaal oo faahfaahin naga siinayay shir madaxeedka wadamada dariska la ah dalkeena gaar ahaan dalalka safka hore ee halkan goordhow ka furmay madaxda shirku wili waa uga socdaa halkan oo ah hoteelka Dakaale iyadoo halkan ay ku kulmayaan madaxweynayaasha Soomaaliya Djibouti dalka Ethiopia waxa hadda ila jooga Cabdishakuur Cali Axmed oo kamid ah bahda warfaafinta qaranka ee halkan u joogta tabinta shirkan ama dhacdadan weyn Cabdishakuur soo dhawow shirku madaxdu waa u socdaa maxaa xiga kulanka hadda ومحسنتهاي كلنكا سيد أكتهاي مركا لقصو بلاو الشلي أو أي تلياش كل من شركة مدحوينها يو مدحوينياش رزوراء إثيوبيا وأصونا دعاي وحكوهري شركة وزير ردا قاشان لقا ودمدا صف كوريا ودمدا درس كلا صوماليا إثيوبيا جيبوتي يو كينيا waxaa laga wada hadlayaa iskaashiga labada dal Soomaaliya maadaama hadda ay horumar ka sameynayso dagaalka lagula jiro khawaarijta sidii wadamada dariska ama wadamada safka hore
ay isaga kaashan lahaayeen. Marka shirka hadduu soconayaa waxaa la filayaa in goor dhow hadduu ilaa yidhaahdo marka madaxdu ay ka munaaqishoodaan shirka iyo waxyaabihii loo qabtay in lasoo saaro war saxaafadeed ka hadlaya ujeedkii shirka, natiijadii la gaaray iyo sida la isku kaashan karo mustaqbalka Soomaaliya iyo wadamada deriska la ah. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shirkan martigeliyey, waxaana laga hadlayaa Soomaaliya horumar ay sameynaysaa sidaad ogtahay oo 6 bilood ee lasoo dhaafay al-shabaab dhul ballaarna laga qabsaday. Marka wadamadan oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya laba arrin ayay saameyn u leedahay. Mid waa in ciidamada ay ka joogaan oo la diyaarinayo qorshihii kala guurka ciidanka AMISOM ama ATMIS iyo ciidanka qaranka Soomaaliya. iyo midda labaad oo ah maadaama dawladda Soomaaliya ee dagaalka al-shabaab ka dhanka ah ay horumar ka sameynayso in kaalinta maxay noqonaysaa wadamada sidee ugu diyaar garoobayaan. al-shabaab waa ogtahay ururka argagixisada al-qaacida ku xiran yihiin, urur kaloo daacisha jiro. ururadaas argagixisada ama naftigooda sidee wadamadu isaga kaashanayaan maadaama Soomaaliya looga adkaanayo, sidee ayaga naftigooda ugu diyaar garoobeen oo loola dagaalamaya, sidee hadda dawladda uga caawin karaan maadaama Soomaaliya horumar ay ka sameynayso, ciidanka qaranka iyo shacabka oo iskaashanaya ay deegaano badan qabsadeen. Marka waxyaabahaas laga hadlayaa. Marka Cabshukuur mid haddaynu dul istaagno qodobada Soomaaliya waxay waqti kooban ku muujisay guulo weyn oo ciidamada qaranka oo kaliya ay ku xoreeyeen dhul badan al-shabaab looga qabsaday. Qorshahan iyo shirkan hadda muxuu ku kordhi karaa? Waxaan ognahay in dhawaan oo bilaabanayo wajigii labaad. Suurtagal ma tahay in wajiga labaad uu ka duwanaado kii koowaad? hadda mid muhiimka waxa waaye Soomaaliya maadaama ay horumar ay tallaabooyin qaadayso, la diyaarinayo qorshaha 2024 ay ATMIS ku baxayaan wadamada deriska la ah, maadaama dagaal aan galnay oo al-shabaab dagaal dawladdu la gashay wadamada deriska oo saameyn ku yeelan karo. Sida ogtahay al-shabaab ay khawaarijtu waxay weerareen Ethiopia weerarkii ugu dambeeyay oo looga adkaaday, waxay mararka qaar weerar ka geystaan Kenya. dhibaato marka gobolka ama wadamada deriska la Soomaaliya ayay al-shabaab yihiin. Marka wada hadalkan maadaama uu madaxweynuhu cusbaa uu hindisa madaxweynaha iyo dawladda cusub ee la timid ay ahayd 6 bilood la soo dhaaf intii ay jirtay, wada hadalka kaleeto kan wuxuu noqon doonaa hordhac in dawladdu ay bandhigto sida hadda ay u muuqanay qaab shirka u socdo, in dawladdu bandhigto madaxweynuhu bandhigo aragtida dawladda ee dagaalka khawaarijta horumarka la gaaray. wejiga labaad waxaa laga wada hadli doonaa xuduudaha iyo iskaashiga in la xoojiyo amniga. waxaa kaloo meesha aan ka marnayn in dhaqaalaha iyo waxyaabo badan laga wada hadlo oo wadamada dhibaatooyin wada jira haysto. waxaa kamid ah abaarta wadamada Afrika ee geeska Afrika ama wadamada deriska la Soomaaliya baa ku dhiban yihiin. waxay kaloo Soomaaliya iyo wadamada ku dhiban yihiin ururada argagixisada ah iyo arrimaha dhaqaalaha oo ayagana uu jiro barnaamijyo dhaqaale oo hadda iskaashi ah. Marka waxaa wejigan koowaad oo Soomaaliya hadda ay martigelisay wuxuu muhiim u yahay in Soomaaliya hadda ay aragtideeda bandhigto, meeshii joogto sheegto, wadamada deriska oo ayaga qayb ka ah arrimaha la dagaalanka al-shabaab oo ciidamadooda ay ka mid yihiin ciidamada waddanka joogo, in ay Soomaaliya horumarkaas meesha u socoto iyo al-shabaab inay ka adkaanayso dhulkii gobolada dhexe oo looga adkaaday, dhulkii koonfurta loo socdo, in kaalin ay ka qaataan waysiine. shirka dambeetana wuxuu noqon doonaa shir yani horumarka intaan laga sameeyey shirka in laga sii wada hadlo. Marka gogol xaar fiican waaye. Soomaaliyana wuxuu u yahay naftigeeda inay bandhigto guusha ay gaarto wadamada deriska inkastoo wadamada derisku ayaga dhibaatooyin haystaan haddana ay ogaadaan Soomaaliya meeshii joogto iyo halkay u socoto, aragtida dawladda la dhageysto. waayahay qodobada miiska saaran waxaa ka mid ah bandhig ku aadan in la soo jeediyo in gacan laga geysto dib u dhiska ama dhismaha ciidamada qaranka. shirkan muxuu ku soo kordhi karaa? arrinta dhismaha ciidanka runtii horta horumar laga sameynayay sanadihii la soo dhaafay. Marka dib loo eego ilaa 2000 iyo markii dawladnimada dib loo hantayba tartiib u dhismay. Marka arrinta ciidanka laga hadlin kasoo hadee arrimaha ciidanka aanan hadda aniga wax badan aan ka oran karin oo ay jiraan khubaro amniga iyo dad aad ugu taxliiliyay. haddana arrinta ciidanka hadda soo jeedinta madaxdan dalalka deriska la ah Soomaaliya soo jeedinteedu caalamka maxay ku kordhi kartaa in qayb ka geystaan? aniga waxaan isleeyahay war saxaafadeed ka soo bixi doona horta ay waxaas oo dhan ku cadaan doonaan. laakiin in Soomaaliya hadda shirkan madaxdii ayadoo waqtigan oo 6 bilood markii dawladda la doortay dagaalka horumar laga sameeyay in madaxdii gobolka imaadaan oo ay dhiirigeliyaan dagaalka ciidanka ay qaadeen, ciidanka qaranka qaadeen, guulaha gaareen. yani waxay muujinaysaa sawir fiican. waxay muujinaysaa in Soomaaliya isku filnaan gaari karto waqtiga dhow, ciidankeedu waxay ogeysanayaan.
meeshana kama marno marka laga hadlayo kaalmada tababarka ama taageerada ciidanka oo weli Soomaaliya ciidankeeda hadda way dhismaysaa welina way usii baahan tahay marka wadamada qaar hadda ciidankooda Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti hadda Djibouti way caawisaa waa tababarada naga caawisaa Ethiopia markii hore waa Soomaaliya way taageeri jirtay wadamo badan hadda Soomaaliya qaybana ka tahay marka wuxuu taageeri doonaa wajiga weyn waxa waaye in wadamadii gobolka ay marqaati ka yihiin Soomaaliya horumar sameynayso amniga Soomaaliya horumarkii ka gaaraysa marka inay marqaati ka noqdaan oo ay Soomaaliya wax ay ku tari karaan marxaladan lagu jiro laga wada hadlo Soomaaliya u tari kartaa wax weyn iyaguna waxay sidoo kale taageeri karaan hindisaha dawladda ee aan cunaqabateynta laga hadlo cunaqabateyntu caqabad weyn sanadkan la soo dhaafay 2022 hal sano lagu kordhiyay laakiin arintan iyo dagaalka iyo wadamada gobolka taageerada bixinayaanba waxay u gogol xari kartaa in Soomaaliya arintaasna guul ka gaarto يعني wadamadan ay naftigooda iskaashiga marka laga hadlayo shukr marka aan ka tagno qodobada halkan looga hadlayo shirkan Soomaaliya inay qabato oo Muqdisho uu ku qabsoomo iyada laftirkeeda tilmaan ah marka maxay ahmiyad noocay u leedahay dib u dhiska Soomaaliya runtii Muqdisho inay hadda shirkan marti geliso oo dawladdu ay qabato waxay muujinayaan in Soomaaliya ay korayso dhinaca amniga oo horumar la sameeynayo nabadda wax laga sameeynayo dhibaatooyin waa jiraan dagaal lagu jira haddana in madaxdii gobolka halkan yimaadaan oo laga wada hadlo iskaashiga oo intaas joogaan oo yani waa sawir fiican oo Soomaaliya ay ka bixinayso marxaladan lagu jiro meesha loo socdo marka mid waxay u tahay dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed in ay fahmaan Soomaaliya sawirka qaldan ee laga haystay sanado badan jiray in la baabiyo waqti badan u baahan yahay iyo dulqaad u baahan yahay marka tan waxay qayb ka tahay sawirka Soomaaliya in la hagaajiyo Soomaaliya la sheego in yani dhinaca wanaagsan iyo horumarka la sameeynayo in wax badan ka jira marka arintan runtii waa xaqiiqo waxay ku dhiirigelinaysaa wadamo badan iyo madaxdooda in shirar badan la martigeliyo shirkan oo kale waxa u dambeysay 2016 shirkii urgoboleedka IGAD oo Islaam Muqdisho lagu qabtay oo madaxdii urgoboleedka IGAD ay ka qayb galeen hadda Soomaaliya in shirkan la qabto haddana shirar kale dhiirigelin doonta in kii IGAD la qabto Soomaaliya hadda waxay ku biiraysaa si ay ogtahay kii urgoboleedka bariga iyo bartamaha Afrika bariga Afrika ee iskaashiga dhaqaalaha ay Soomaaliya ku biiraysaa ayada naftigeeda waxay tahay tallaabooyin kale oo la qaadayo markii la soo koobo waxa isleeyahay shirkan marka dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo sawirka qaldan ee xoogan laga haysto marka la fiiriyo shirkan wuxuu ay soo korayso in Soomaaliya hagaagayso midaas oo ah qofka muwaadinka ee Soomaaliga wax sharaftiisa kor u qaaday dawladnimadana ay ku hagaagayso aan isleeyahay oo sawirka dawladdu hagaagana waxaan isleeyahay oo kalsoonidaas ay soo noqoto waxa si hagaagi kara sharafka muwaadinka iyo yani Soomaaliya iyo dalkeena aad iyo aad waa sida uu sheegay daawadayaal Soomaaliya oo maalinba tallaabo qaadaysay maanta waxa la joogaa in muddada inta leeg ay halkan ku sugan yihiin madaxda dalalka aynu dariska nahay oo madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal isugu jira tani waa fariin ay dirayso Muqdisho iyo Soomaaliya jawiga iyo isbedelka cusub ee halkan ka hirgalay sidoo kale waxa ay fursad u tahay dawladnimada Soomaaliya daawadayaal waxaynu idin soo gudbi doonaa marar kala duwan dhacdooyin la xiriira kulanka halkan ka socda ee markaas ay yeelanayaan madaxda dawladaha dariska la ah dalkeena gaar ahaan dawladaha loo yaqaano safka hore bayaan ayaa dhawaan la soo saari doonaa waxaynu idin soo gudbi doonaa wax waliba oo la xiriira dhacdooyinka halkan maanta ka dhacaya inta ayaynu ku soo gabagabeynaa tabinteena tooska ah ee halkan aad kala socoteen muqbaahiyaha qaranka waad ku mahadsantihiin daawashadiina